hal ruux ayaa ku geeriyooday magaalada Laascaanood maanta koronto ka dhalatay roobab ka daay magaalada Laascaanood. Wiilka yar ee geeriyooday ayaa da'diisu ahayd 11 sano wuxuuna ka soo jeeday qowmiyadda Oromada ee Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa arrintan ka warbixiyay isagoo sidoo kalena tacsi u diray labadii ruux ee xalay lagu dilay magaalada Laascaanood oo mid ka mid ah uu geeriyooday halka ka kalena uu yahay dhaawac. marka koowaad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hawshaas markii ay dhacday waxa ku dhintay wiil 12 jir ah oo la yiraahdo Nuur Amiin Cabdi Naasir wiilkaas oo ka soo jeeda deegaanka Oromiyo oo ku geeriyooday tab koronto oo ay dhalisay roobkaasi markii uu da'ay ugu tacsiisanaya isaga ehelkii asxaabtiis iyo qaraabadiisaba ilaahay xana sabir iimaan ka siiyo saacada kadib magaalada ka dhacay laba nin ciidanka asluubta ka tirsan ayaa iyagana isdilay oo shil dhexmaray waxa ku dhintay meesha Fahad Salaad Xaashinin la yiraahdo waxaana ku dhaawacmay nin odayo la taagnaa Saciid Umar la yiraahdo ilaahay wuxuu baray ninka dhintay taasi oo diray qoyskiisa iyo qaraabadiis iyo eheladiisiba iyo ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uga tacsiisanaya ciidanka gaar ahaan ciidanka asluubta waxaan uga tacsiisanaya marxuumka dhintay in ilaahay u naxariisto samir iyo iimaan dawladdu dhanna ka siiyo gaar ahaan ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka asluubta ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo askariga kale dhintay walaalka shaqada ay wadahayeen gacan ku dhiglahana runtii waa lagu maqan yahay waana la soo qabanaya insha Allah waana ka wada hawlgaleen ehel iyo dawladba runtii gacantan lagu soo dhigaya. dhanka kale gudoomiyaha shirkadda Solar Power Naasir Maxamed Barre ayaa sheegay in qasaaraha shirkaddu ay geysatay halka ruuxa geeriyooday ay bixinayso magdhowgiisa. lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraanyada u diraynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay wiilkii yaraa ee xalay fiidkii korontada ay ku dishay magaalada Laascaanood. runtii waxa weeye waa arrin naxadin leh ilmo yar oo masaakiin ah oo da'yar oo soo korayay in mustaqbalkiisii uu halka ku waayay ehelkiisii iyo waa tacsiyeynayna wixii xuquuq ah ay yeelato marxuumkaas uu yeeshana shirkaddu diyaar bay u tahay inay iyadu qaado qofka marxuumka ah iyo wixii xuquuq uu leeyahay insha Allah. marka maadaama anaga korontada iyadoo ay ahayd wax dilay ma rabno inaanu qofka miskiinka aan muran gelino laakiin waxaan codsanaynaa in birahaasi waxyaabo badan bay keenaan mushkilad ah wayna soo noqnoqotaa waxyaabaha noocaas ah birahaasi ay keenaan ama ha ku soo dhaceen fiiro ha gooyeen ama fiiro kale ha taab. marka waxaanu codsanaynaa waxyaabaha aan shaqada ahayn ee magaalada ka dhex taagan ee xarkihii saaran yihiin in wax laga qabto baan codsanaynaa. Muna Axmed Cabdi Muna Mandeeq dalka TV Laascaanood.